munaasabad si weyn loo soo agaasimay ayaa ka dhacday magaalada Kismaayo ee caasimadda kumeel gaarka ah ee dowlad goboleedka Jubbaland. munaasabadda waxaa qabtay odayaasha dhaqanka dowlad goboleedka Jubbaland oo kaalin muuqata ka qaadanaya dhiirigelinta iyo garab istaagga ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre. kulankan oo ahaa mid si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo muuqday guud ahaan qaybaha kala duwan ee bulshada, waxaana kulanka lagu soo bandhigay qoobka ciyaar iyo suugaan kala duwan oo lagu soo dhaweynayo ra'iisul wasaaraha. sidoo kale qayb ka mid ah ka soo qaybgalayaasha ayaa ka codsaday in golaha shacabku ay codka aqlabiyadda siiyaan ra'iisul wasaaraha si uu si degdeg ah ugu soo dhiso xukuumad tayo leh oo wax ka qabata arrimaha hortebinta ee dowladda. intaa kadib qayb ka mid ah odayaashii kulanka ka soo qaybgalay ayaa goobta ka hadlay. oga soo qayb gasheen iyo waxyaalihii aad ku hadlayseen iyo matalaadii Jubbaland aad matalayseen ee u direyseen ummadda Soomaaliyeed iyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha cusubba arrintii aad u direyseen raalli baan ka ahay magaciina anoo ku hadlahaya mar labaad iyo mar saddexaad waa idin mahadnaqaya reer Jubbaland taana waa idinku ogaan. waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo oo soo dhaweynteedan aan halkan uga jeediyo ra'iisul wasaaraha ummadda Soomaaliyeed mudane Dr. Xamse Cabdi Barre oo run ahaantii ah qof aqoon-yahan ah, diin leh, akhlaaq iyo aadaab u saaxiib ah inaad dhaho soo dhawow mudane. soo dhaweynta ra'iisul wasaaraha kadib waxaan rabaa inaan halkan uga mahadceliyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo gartay maanta inuu reer Jubbaland farxaddan iyo qiimahan iyo maaragtay rajayntan ay ku fadhiyaan uu garto oo u soo magacaabay ra'iisul wasaaraha. waxaan leenahay mudane madaxweyne mahadsanid. ra'iisul wasaaraha khayr Allah siiyo, Allah xafido. dhammaanteena horta waynu garab istaagnaa, waa inaan u ducaynaa. waxaan rabaa munaasabadan qaaliga ah waxaa lagu maamuusaa ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka Soomaaliya Xamse Cabdi Barre. xamse ra'iisul wasaaraha waxaan ku barannay maamuus fiican iyo aadaab iyo asluub iyo afgaarni iyo qadarin dadka inuu qadariyo ragga iyo haweenka odayaasha dhaqanka dhammaan intaan ku barannay waa looga baahan yahay. intaa kadib waxaan rabaa shalay haddee wuxuu ahaa Jubbaland uu ahaa maanta laakiin waa ra'iisul wasaare qaran weeye. Soomaaliya oo dhan mataqaanaa dowladda wada saaraysa waa la wada fiirsanaa. waxaan rabnaa inuu noqdo ninka koowaad ee dadka isu soo dhawo inuu noqdaan rabnaa, inuu ka saara mugdiga yar oo ku jira Soomaaliya dhammaanteed. waxaa kaloo u hambalyaynayaa mudane Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaaraha cusub waan u hambalyaynaynaa. waxaan leenahay Xamsow haddaan nahay reer Jubbaland markii horeba waa ku dirsanay, haddana waxaan ku dirsanay allabaa sahlay. waxaan rabnaa Soomaali weyn sida Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynaha uu cadaaladda ugu maamulay sidaas la mid ah inaad adigana Soomaali oo cadaalad ugu maamusho, qofna aan u eexarin, qofna aan la dulmin. mahadcelin waxaa iska leh oo u mahadcelinaynaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud maadaama uu aqbalay codsigii ay u jeediyeen bulshaweynta ay hormuudka u hayeen dhaqanka Jubbaland ay ka codsadeen inuu sanadkan u magacaabo inuu sanadkan siiyo ra'iisul wasaaraha Jubbaland. aqbalaadu aqbalay iyo ogolaaday. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha. waxaan leenahay waad mahadsantahay. waxaan hambalyaynaynaa ra'iisul wasaaraha. ra'iisul wasaaruhu ma aha nin qurba jooga, waa nin qorax jooga. 30 sanadood ee waddanku dhibaatada ku jira waddankuu joogay. waddanku wuxuu qabo iyo wuxuu rabo wuu garanayaa, wuxuu baahi qabo iyo meel walba wixii ay dhibaato ka qabto wuu garanayaa. waxaan leenahay mudane ra'iisul wasaare hambalyo annagoo ku siinayna inaad ogaato sidii lagu ummadda Soomaaliyeed kuu dooratay inaad ummadda Soomaaliyeed wax ugu qabato. may rabe unubay ana may mitilo laandheerayaalkii Jubbaland hal istaag munaasabadan
eed sharaftan lata wala kusoo dhaweeyaa ra-iisul wasaare xamse cabdi bare aad iyo aad u soo dhawaayaan haddii unu ena beelaha shambara xafladdan quruxda badan leh ee la soo agaasimay dadkii soo agaasimay khayr allah siiyaan leeyahay tan labaad madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud maad ha ka gaarto jubbaland waxay mataqaanaa ka codsatay buu fuliyey aad iyo aad iyo aad baan raalli ugu nahay waa la shaqaynayna tan saddexaad waxaa weeye xamse cabdi bare anigu saaxiibkayga gaar ahaaneed weeye aad iyo aad baan u soo dhawaynayaa shaqo wanaagsan soomaalinimo iyo cadaalad baan mataqaanaa ku ogahay ilaahay xilkaa kuu garab garan leeya xilka allah kugu fuudeeyo waxaan leenahay maad ilaaha maanta iskale soo aan halkaas kugu nimi soo dhoweynta koowaad iyo labaad madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra-iisul wasaarihiisa madaxweyne waxaan leeyahay waad asiibtay waa runtii waa arrin isbeddel fiican leh oo new face leh oo markii koowaad ay tahay in la sameeyo qaab isku shaandhayna waxaan leeyahay waxbaad curisay way socon doontaa insha allah ilaa madaxweyneha socon doontaa ra-iisul wasaaraha waxaan leeyahay ra-iisul wasaare soo dhawow soo dhawow wasaaraheena cusub doctor xamse cabdi bare aad baan u salaamayaa waan u hambalyaynaa doctor xamse waxaa ku leeyahay awalba waxaad ahayd safiir aan ku dirsanay oo xamar kuu dirsanay haddana waxaad noqotay safiir soomaaliya oo dhan ay dirsatay waxaan kaa rajaynaynaa inaad dalka nabadaysid aad dadka isu keentid 5 sano jahawareera lagu soo jiray waxaan rabnaa in 5 sano lagu iloobo madaxtinimadaada aad baana kuu soo dhaweynaa waana ku salaamaya ra-iisul wasaaraha xasan doctor xamse cabdi bare xamse waa nin soomaali ah waa nin la yaqaano waa nin reer jubbaland ah waa nin taariikhda soomaaliya waa nin weli iska bixin waa nin waxbarasho iyo meel walba ka soo shaqeeyey waxaan aad u rajaynayaa inuu waa nin garanayo hawsha dowladnimo waxay tahay waa nin garanayo administrationka iyo dowladdu waxay tahay waa nin sida aan xogta ku hayo waagii burburkii waxbarashadii baabaaday ee soomaaliya raggii kor u soo qaaday buu ku jiray waxaan aad u soo dhawaynaynaa ra-iisul wasaaraha la magacaabay xamse cabdi bare ee maanta haddii ilaahay kaalinta koowaad ee jubbaland inay noqoto ra-iisul wasaare maanta asagu kow noqday waa ku soo dhawaynaynaa mudane xamse waa ku soo dhawaynaynaa waxaan ku leenahay noqo kii soomaaliya mugdiga ay ku jirta ka saari laha allaha kaa dhigaan leenahay kii mugdiga soomaaliya ku jirta kaa saari laha allaha kaa dhigaan leenahay waxaan leenahay noqo nabadii fureeda waxaan leenahay noqo insha allahu wixii kala xirxidnaa iyo cadowtinimadii iyo wixii soomaaliya dhex yaalay kii nasiib u yeeshay inuu kala furo noqaan leenahay waxaan mahad ballaadhan u celinaynaa madaxweynaha ummadda soomaaliyeed sheekh xasan madaxweynahaasaan u celinaynaa mahad ballaadhan baan u celinaynaa waxaan ugu mahad celinaynaa oo aadaan ugu mahad celinaynaa ra-iisul wasaaraha magacaaban ees doortay ee xamse jubbaland ka soo jeeda siduu ugu magacaabay jubbaland qof ka soo jeeda aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa waxaan ra-iisul wasaaraha kula dardaaramaynaa cadaalad iyo sinaan inuu soomaaliya ku maamulo cadaalad iyo sinaan inuu ku maamulo yaan isagana uga mahad celinaynaa madaxweynaha haddaan ku noqdo qabyuu sheegi jiray oo sanadkii hore qabyuu ka tegey waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu qabyadii dhammaystiro sanadkan oo soomaaliya meel fiican uu gaadhsiiyo madaxweynaha ummadda soomaaliyeed xasan sheekh maxamuud taasaan isagana ugu ducaynaynaa xamsana soomaali sinaan oo la wada baadi raadiyo oo isu raadiyo oo soomaali isu keeno ayaanu ka rabnaa waxaan mahad ballaaran oo kale u celinaynaa sayidka madaxweyne axmed maxamed islaan oo dariiqada lagu gaaray aad uga soo shaqeeyey ra-iisul wasaarada oo wax badan ka soo qabtay isagana waa u mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa hawl badan buu ka soo qabtay hawshaas waxaan kale u mahad celinaynaa sheekh xasan daahir aweys oo qofka ugu horreeyey ee ifiyey ahayd xaajadan hadda la galay asna waan u mahad celinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa abaalkaana waa u haynaa isagana abaalka waa u haynaa aad iyo aad baad u mahadsan tihiin barwaaqo iyo badhaadhe soomaali oo barwaaqo gaadha taasaan ku ballamaynaa ilaahay aan noo aqbala waxaan u istaagay inaan maanta u mahad celiyo dadka reer jubbaland hadday dumar yihiin hadday gabdho yihiin hadday xildhibaano yihiin hadday odayaal dhaqan yihiin hadday dhalinyaro tahay dadka reer jubbaland inaan u mahad celiyo
waad mahadsantihiin walaalayaal dadka waxaa weeye 9 saac baa la marayaa ilaa hadda maanta lama qadaynin waxaan loo qadaynin waa kalgacayl iyo wanaag loo qabo ra'iisul wasaaraha cusub in halkan looga hambalyeeyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaan odhan lahaa dadkana meesha yidhi dadka joogaa yidhi anigu doorkaygu waa inaan idin hambalyeeyo keliya kulligeen bay soo hambalyeyno hambalyo waa mahadsantihiin aad baa u mahadsantihiin dhanka kale haweenkii ka soo qayb galay kulanka uu isugu jiray xildhibaano wasiiro iyo ururada haweenka ayaa iyaguna dhankooda ka hadlay oo maanta aan iskugu nimid munaasabadan amba xafladan aad u magac dheer oo innagoo dhan naga farxisay adduunka daacaddiisa mise daafihiisa meel aanu ka joognayba waa la dabaaldegay waxaana loo dabaaldegay waxay ahayd ra'iisul wasaaraha la magacaabay oo reer Jubbaland ah oo weliba reer Kismaayo ah oo jubbada hoose ku dhashay laakiin looma kala harin waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaheena sharafta leh inuu macnaha mas-uuliyadda intaa leh inagu aaminay oo weliba nagu sharfay waayo aad baan u daydaynay marka waanu degnay hadday curatay eegay degtay eega maasha allah waxaan halkan hambalyo iyo bogaadin ugu dirayaa ra'iisul wasaaraha cusub Xamse Cabdi Barre waxaan leeyahay ra'iisul wasaare waxaa ku sugaya shaqo badan waxaan ka rajaynayaa inaad noqoto mideeyaha Soomaali waxaan ku rajaynayaa Soomaali way daalan tahay midkii daal bixin lahaa inaad adiga tahay ra'iisul wasaare Xamse ana kana naqoy mar walba laakiin aan wali ma ka aragn markii Kismaayo kooy taweetna gabadha beesha Shambara aan wali baada ma ka aragna Kismaayo may daadsante ama meel walba may daadsante Xamse aqooyihiin waay Xamse nin walba sheegaw ma wax garad waay runtii nin qaali ay waay nin cadaalad ay waay hada may rabna niyo horta qashan miyaalo heeda qashan miyaalo midnimadii Soomaali wixii dhafadni horaan landahay midnimadii Soomaali ka shaqeey hadii Ilaahay namdho Xamse magaciisa yaa maado Xamse magaciisa yaa mood maalimo binte maka imadina intii maka imadina magaalada maalqabeenkiisa intaa dabadeed mas'uuliyiin kale oo dhanka dawladda ka socotay oo ay ku jireen xildhibaanada ayaa iyaguna markooda hadlay xaale mudane xashan sheekh maxamuud oo magacaabay ra'iisul wasaare Xamse Cabdi Barre waxaa moodaa inuu Soomaalidu meesha ka bugto ogaaba moodaa maasha Allah Xamse waxaan leenahay soo dhawow bulshada reer Jubbaland bulshada Soomaaliyeed kii u heeliya kii garab istaaga kii ka bixiya dheeligiina soo maray Allah subhanahu wa ta'ala ha ka dhigo waan kaaga mahadcelinaynaa magacaabista Xamse Cabdi Barre oo ka soo jeedo gobolada Jubbooyinka inaad maanta u magacaado ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Xamse waxaan kula dardaarmayaa maanta waxaad tahay qof aqoon-yahana bulshada Soomaaliyeed aan dhinac uga dhex bixin dalkan muddadii burburku uu ku jiray howlo badan ka soo qabtay bahda waxbarashada siyaasadda sharciyada qaybo kala duwan ka soo shaqeeyay xog ogaal u ah marxaladda iyo xaaladda dalkeena iyo dadkeena ay ku sugan yihiin waxaan leeyahay waa in sidaad xog ogaalka ugu ahayd aad ugu damqanaysay ugu hiilineed dhaxda kugu xirneed aad laba jibaartaa adoo qiimeynaya marxaladda dalkeena iyo dadkeena ay ku sugan yihiin waxaan rajaynayaa haddii Ilaahay idmo Xamse Cabdi Barre inuu muftaax u noqon doono nabadeynta iyo gobol xaarka ummadda Soomaaliyeed isu keenideeda dhab u heshiisiin iyo horumar iyo amni iyo baraara dalkeena uu ku talaabo kii albaabkii Ilaahay raxmaanka ahaa ee ugu talagalay in uu ku furo inaad noqotan Ilaahay waa kaaga rajaynaynaa waana ku jecelaynaa Jubbaland ayaa si weyn looga soo dhaweeyay magacaabista ra'iisul wasaare Dr. Xamse Cabdi Barre taas oo u noqotay qorrax soo baxday guud ahaan bulshada deegaanada Jubbaland waxayna tani ay sii wanaajin kartaa horumarinta deegaanada Jubbaland.